kulanti waan wanaagsan dhammaan baan ku xiran janaalka kulmiye technology maanta waxaan isla arkaynaa sida loo sameeyo sign up page. Okay, and marka ugu horeyso waxaan soo kacsanayaa Visual Studio Code and Notepad baa ku sameyn kartaa haddii aad rabto, balse waxaa fiican Visual Studio Code maxaa yeelay waqtiga aad Notepad kaaga bixi lahayd waa kaaga baxaya waqti ka yarkaas, marka kan ayaan iska soo kacsanayaa. Okay, sida ujeedin wuu soo kacayay marka wax leenahay new file arabnaa inaan sameyno amba intaa riixi kartaa isku meesha waaye. marka inta iska riix new file save ale marka control s aad riixaysaa. marka aad save dhahdo waxaa sheegaysaa meesha aad rabto. hadda waxaa iska leeyahay desktopka dhig. okay, desktopka haddii aad dhigto waxaa u bixisaa sign up.html kadibna waxaa leedahay intaad tegaysaa taabka oo nuuciisa asiga ah raadsada leeda computerka anoo u sheegay html waaye all files data asiga ku habeenayo shaqadaas qabanayo save aleenahay. okay, sida ujeedin waa save. kadib waxaan riixayaa shortcut-keena waa kaasa calaa waxaa riixaysaa shift number 1 taasoo ala exclamation mark ahaan dhan asiga ayaa ku qoraayo Visual Studio waana waxyaabaha qaar aan ku doortay waa koodkeena pasta ayuu ka dhigaa. kadib dib aan qabsanaynaa dood leeyahay waxaa waaba raab markaa dhaw sida ujeedin waa kaasa imid alda waxaan wuu ku caawinayaa si koodkaaga uu noqdo mid fudud. kadib title-ka oo waxaan sameynaynaa title. okay, dhexdeeda waxaa iskaga qorayaa sign up. okay, kadib waxaa sameynaynaa phone. okay, phone-ka waa sameynay. kadib waxaa leeyahay waxaa kaa rabaa inaa aado gudaha lahaa. kadib dib waxaa sameynaya taasoo ah phone group. okay, waa sameeyey. kadib input aan gelinaynaa kaasoo nuuciisa yahay text baa geliyey. kadib waxaan u sameynayaa placeholder haddii aan u sameeyo waxaa leeyahay username. enter your username. waxaa leenahay enter your username. okay, qofka wuxuu gelinaya username. balaa inta aragno waa kana sida ujeedin waa kana meesha soo yiilay geeska ayaan soo dhigayaa asiga ayaa kila ku leedahay sida ujeedin. ilaa hadda waxaan maraynaa aan sameynay sign up iyo enter your username. ilaa hadda halaas ayaan qabanay. balaan badiyo qaybtaan balaan badiyo halaan soo koobiyeyso control c control v. kadib inta ayaa bedela inta waxaa leedahay enter gmail your gmail. okay, qofku wuxuu gelinayaa gmail. inta waxaa ka dhigaysaa taabka text maahan waxaa leedahay email. okay, email ka dhig asigii la ii koobiyeysan waa sidaa. kadib inta basti ku dheh waxaa leeyahay enter first name and full name oo kala ka dhigaa si ambudada ee noogu yaraada full name. enter your full name magaciisa buuxuu gelinayaa. ilaa hadda waa ii koobiyeysan yahay bastide. waxaa leenahay enter your password. qaybtan hoos nigena waxaa leenahay enter your password wuxuu gelinayaa password. kadib waxaa leenahay confirm your password si passwordkiisa uu xaqiijiyo. okay, confirm your password. okay, intaan halana ka bixinaya confirm your password. balaan aragna hadda waxaan alaaliyo waxaa sameynay refresh dheh si ay ugu soo darmaan kuwo kale waa kuwana waa kusoo darmeen. kadib waxaan ku darayaa batankii oo markii uu qofka halaas xoogana siiyo oo iska diiwaan gelin lahay. haddii artaab waa ku diri kartaa balse waxaa leeyahay sign up. okay, batankeena waa kaasa. okay, balaan isla aragno saa ujeedin batankeena waa kaasa waa isla aragnay. kadib hadda waxaan gelaynaa stylekii aan gelaynaa. hadduu noo dhammaaday qaybtii html-ka waa ka dhammaanay structure-keena waa ka dhammaanay styleka galaa. marka side by side ka dhiga si aad u aragtiin labada dhinac. kana wax yar iska yareynayaa si koodkan oo noogu noqdo. okay,
si koodkaasi fiican u aragtiin kana xoogaa inta la yareyna okay xajinana ujeedin marka waxa tagaysaa qaybtan headka mujida headka waa furan yahay intuu ka xiran yahay marka dhaxdiisa galaysa qaybtan document ku qoran tahay waa meeshan waxa leeyahay waxa ka dhigtaa sign up okay kadib refresh da kor waxay noqonaysaa sign up okay xajinana ujeedin kadib inta waxa tagayna waxa leeyahay style markii aad dhaw waxaan dooranayaa diftan tan oo ah rubber okay diftaas haddii aad doorto kadib markii aad magaceeda qoro waxaa rabaa diftaas inaan qurxiyo kadib waxaa leeyahay border inaan si aad u aragtiin border 2 pixel solid white okay kadib inaan refresh dheh sawjeedin waa taasa kadib waxaa tagayaa body horta kadib waxaan sameynayaa background ayaan u sameynayaa okay waxaa leeyahay background colorkan hal color ayaan dooraa kadibna sii dooraa waxaan leeyahay grey camal aan rabaa colorkaas yes kaas camal aan rabaa okay sidaa ujeedin backgroundka waa isbedelay sidaa ujeedin backgroundka dhammaan waxaa la dhahaa qaybtaan oo dhan sidaa ujeedin backgroundkeena oo isbedelay kadib waxaa leeyahay margin ka saar si marginada uu geeska si looga baxsho maxaa yeelay by default margin of duro kaasoo browserkana siinayo margin 0 haddii aan dhaho waxaan marginada wuu ka baxayaa okay sidaa ujeedin marginka wuu ka baxay kaas waa kasoo dhammaaday qaybtan ayaa tegaya waxaa leeyahay widthkeeda hadda widthka asiga dhan uu haystaa marka widthka soo yaray 320 pixel okay 320 pixel aa ka rabaa dhacay okay 320 pixel oo ii noqday kadib waxaa leeyahay margin auto kaasoo ah waxaan dhexda geey kan dhan dhexda geey walaa isla aragno okay sida ujeedin waxaa la geeyay dhexda kadib waxaa leeyahay markii aad dhexda geyso waxaa kaa rabaa inaad background siiso waxaa leeyahay backgroundkiisa siga white ka dhigaynaa kana doora kadib caadi dooranayna waxaan ka dhigayaa white ff daarta iska dhigi kartay daarta cornerkaas aad geynaysaa white waan doortay okay sida ujeedin waa cadaan kadib height ayaan siinayaa heightka waxaa leeyahay 400 pixel waxaa ka rabaa waa dhirarka widthkan waa balac sida ujeedin hadda dhirarka waaye kadib waxaa tegayaa phone okay phone markii aad dhaho asigana border si aad aragtiin 2 pixel solid okay white kan wuxuu yahay si aad aragtiin waa qaybtaas oo dhexda okay waxaa leeyahay display flux okay refresh day sidaa ujeedin waxaa leeyahay display flux iyaga dhan waa israaceen balse waxaa leeyahay flux direction saas barbnalena flux direction column aa ka rabaa leeyahay okay sidaa ujeedin directionka column ma ahaado column waaye okay waxaa leeyahay align item center okay sidaa ujeedin waxay tageen dhexda ay tageen waana waxaa ka rabnay kadib waxaa leeyahay badding kaasoo ah waxaan baaxad u yeel darbiyada kasoo siki badding waxaa leeyahay 10 pixel sidaa ujeedin badding 10 pixel aa lagu daray okay borderkan iga saar fresh day waxaa tegaynaa inputyada tegaya sidaa iyagana aan qurxino waxaa leeyahay import okay import badding 8 pixel aa ku daraynaa sidaa ujeedin waxay noqdeen waaweyn kadib waxaa leeyahay waxaa dooranaynaa dot form
group font group aan dooranaya dibtaas ale margin 5 pixel around kama bay qaybtan 5 pixel dhaa dhamaantood balse 0 pixel كيسي وجدين جيسا wax margin kama bay curious kana waa left hadii laba xaba ageliso waa shortcut kama curious kana ever labada dhinac ever ka dhiga dhaay oo wax margin ay gelin kadib waxa leeyahay with 100% boqolkiiba boqol ka dhig containerka ay ku jiraan okay way noqdeen boqolkiiba boqol intaan widka ay ku bala isla aragno aan intusiyo bal widkeeda right intaan widkeeda hadii aan aragno soo jeedin dibtaan widkeeda waa intaas diftaan iyadana balandhawa diftaan with 100% of arba parentiga كسو جدين 100% ay noqotay kadib waxaan ka reebayaa padding can oo labada dhinac ka raacay kan 8 pixel curious 0 pixel labada dhinac hadda caadi ayuu noqonayaa banaanka u baxay laakiin banaanka mu baxay soo jidin waa kaasa borderka ingisaar okay borderka waa iska baxshay okay refresh de okay borderka waa baxshay waxaan qurxinayaa ciwaankan kaasoo ah title ka ciwaanka title kana dooranayna si aan qurxino titleka okay dot title على سكن سوى كيمبور 2 pixel solid okay سوى ركتين متك أندورنو وكاسا okay على padding curious وعروا 5 pixel لبعض دينا 5 pixel أكروا أم 8 pixel كده 8 pixel كده على refresh ده okay refresh line عايزين background color دانا ودوري كديبس color كلاس كدورنا وعليه عروانا كديكتو blue okay color كاس عمل متك على المتك أرتا كديكتا وحمينا دقرال كيا قرصوني so color عليه hashtag ff كاسو عدان كديك color كماشاس كدورو colorka meesha ku jiro waxa laga dhigaa cadaan okay cadaan laga dhigay qoraalka waxa rabaa inaan geesaa leeyahay dhaxda text align center kaas waa qoraalka aan ku jiro inta dhaxda geey soo jeedin dhaxda ayuu tagay font size leeyahay font size cabirka oo qofarta waa weynay 25 pixel arkayna sida ay noqoto esta script saved okay 25 pixel ay noqotaa wax la arki karo borderkan iga saar inaan tusiyo leeyahay vis save le kadib waxa leeyahay fontkan waxa rabaa waxayran aan soo sikiyo fontka waa kana margin top leeyahay margin top kaas waa kor ka soo sikiyo qaybtan 5 pixel ka soo sikiyo kor okay soo jeedin 5 pixel laga soo sikiyo okay kan borderka ka baxshaasina oo raawrka borderkan ka baxsho okay borderka ka baxshay kadib waxa rabaa inaan kor ka soo sikiyo 100 pixel darbiga waa ku dhagan kor okay soo jeedin kor ayaa laga soo sikiyo 100 pixel kadib waxa leeyahay waxa imaada buttonkan sign up buttonka qurxinana so waxa leeyahay button okay button padding 8 pixel margin top arwa kaas waa kor ka soo sikay 10 pixel kadib waxa leeyahay width waxa ka dhigtaa 100%
kaasoo boqolkiiba boqol meesha uu ku jiro boqolkiiba boqol hala ekaado sida ujeediin waa kaasa kadib waxaa leeyahay background color siinaya background color waxaan iska dooranayaa colorkaas kadib ayaa color kale ka xuleena okay colorka camal green colorka camal adiga mid alaala midkii ku qanciyo muhiimada colorka maan kaliya waa inaan baranaa sida loo sameeyo kadib markaa colorkaas u dooraad haddii aan refresh dhaho okay sida ujeedin refresh waa dhahay waxaa ku jiro border waxaa ka saarayaa border outline kala ku jiro outline kaasoo marka lagu dhufto border soo baxaya asigana hadda xoogaa sida hore wuu ka yaraanayaa sida ujeedin waa kaasa wax dhan waa ka baxshay kalarka madow waaye marka oo farta ku qoran madow waaye haddaan ka dhigo hashtag FFF amba white waa qori kartaa okay haddaan ka dhigay kan waxaa leeyahay border radius oo corner kasoo jebiyaa leeyahay border radius 5 pixel kaasoo geesaha kasoo jebi okay geesaha ayaa laga soo laabay kadib waxaan haddana wax ka bedelayaa inputyadan ayaa wax ka bedelayaa away inputyada inputyada meesha inputyada ku qoran waa kuwana inputyada waa kuwana border ayaa haddii hadda border adho borderkooda ayaa waxaa rabaa inaan start ka dhigo plus la aragna say noqonaa hadda border oo dhan aan ka saaray sida ujeedin wax border ma lahan laakiin outline ku jiro iyagana naftirkooda marka lagu dhufto border aa soo booday so iyagana outline-ka ka saara outline-ka waa ka saaray kadib waxaa leeyahay border button oo qaybta hoose waxaa rabaa border okay button 2 pixel solid okay weero kala leeyahay okay kadib kalarkan waa iska bedelaynaa indhaha muurano kalar kala dooranaynaa kalarkan camal kan camal aan doorayaa okay kalarkaas ayaan dooray okay hal mar aan si fiican u aragno sida ujeedin waa kana foomkii aan sameeyno qofka username-kiisa galaa cali gmail ali@gmail.com kadib magaciisa gelinaa cali maxamed rara passwordka soo ujeedin hadda passwordka waa la arki karaa qaybtan waxaa rabaa inaan hufura u yeelo cursor-kaana inaan falaara ka dhigo okay intaas aan si kuweega u sameeyo waxaa tegayaa button markii aad taga waxaa leeyahay cursor pointer ka dhig okay marka aad falaarta haddii la kor saaro waxaa rabaa inay noqoto suul kadib button hover markii buttonka oo la hover gelinayo ay falaarta kor taalo waxaa rabaa inaad background aad u bedeshid kalarkaas balada refresh do plus la aragno sida ujeedin haddii falaarta la korgeeyo kalarka loo yeelanaa falaartana waxay noqonaysaa suul kana rabaa in passwordkan uu noqdo mid la qari karo marka waxaa tegayaa qaybta formka tegayaa password away tabka waa tagastay marka waxaan ka dhigayaa password okay nuuciisa waa password aleeyahay kan kale ma oo confirmka isagana waxaa ka dhigtaa password okay isagana password ayaa ka dhigay okay hadda haddii aan wax gelsho ma la arki karo sida ujeedin ma wax isha qabanayso videoga like saar channelkana subscribe saar si aad ugu soo birto bacda channelka kulmiye technology